aad iyo aad ayaan rabaa halkan inaan uga bogaadiyo wasaaradda tacliinta guud ahaan iyo wasiirkeeda iyo wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo maamulada qaybtooda kala duwan sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo wasiirada tacliinta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir runtii ayaguna aad iyo aad ugu istaagay sidii loo baahi lahaay tacliinta siyaasadda baahinta tacliintuna ay u noqon lahayd mid taaba gasha oo meel gaarta aad iyo aad ayaan dhammaan u hambaliyeynayaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego ididiilo cusub oo mustaqbalka ah waaye markii hal arday oo dheeri ah oo waxbarashada ku darsoomaba waxay tilmaamayeen ididiilo cusub oo mustaqbalka ah oo soo socotay tilmaamay waa arrin aad iyo aad loogu farxo waanan hambaliyeynayaa dhammaan hooyooyinka iyo aabbayaasha Soomaaliyeed ee dhalinyarada aad iyo aad u garab istaagay inay waxbarashada ku noqdaan arrinta macallimiinta ah sida wasiirku u sheegay dawladdu waxay ka dhigatay hadaf in dalkan macallimiin isbeddelka dhabta ee mujtamacan ku imaan karo halka meel ugu horeyso uga imaan kara tacliinta waay tacliinta qof muwaadin ah oo toosan ay soo saartaa tacliinta waa tuulka ugu fiican ee lagula dagaalamo faqriga tacliinta waa tuulka ugu fiican ee amniga iyo nabadda ummaddu ay ku heli karto marka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hal la garab istaago bahda waxbarashada ee wasaaradaha tacliinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba hal la garab istaago haddaan la garab istaagin oon gacan lagu siinin ma guulaysanayaan maanta dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inuu sheego sida wasiirku ka dhawaajiyay 10,000 oo macallin ayay dawladdu ballan qaaday 9,000 iyo 9,000 3,000 iyo 3,000 6,000 waa already waa la waxeeyay macallimiin bas ma marka macallin bas ma aha nin macallin oo shaqaalaha oo la shaqaalaysiyo oo meel la geeyo bas macnaha ma xirfad waa horta macallinimadu waa xirfad qof kasta macallin ma noqon karo qof xirfadeedii leh oo loo tababaray oo diyaarsanaa macallin noqon arintaas waxaan rabaa marka mujtamaca inay u istaagto macallinka ixtiraamkiisa weynayntiisa dawladda Soomaaliyeed macallinka iyo ixtiraamkiisa iyo weynayntiisa way u taagan tahay marka macallin macnihiisa intaas uu ku fadhiya waxaan soo joogay dalkan hadda korsaan u sheegay ayadoon hal arday iskuul aadin maalin waagu bariyo oo hal arday oo Soomaali ah oo hooyo saaka inta u soo quraacad uniform soo gashtay laba buu gacanta ku soo qabsaday ee iskuul u sii socdo maalin aanay jirin yaan soo istaagay oo anigu soo joog waxaan soo joogay maalin liiraa dhalinta Soomaaliyeed ee iskuulka gaartay 5% iskuul aado 95% iskuul ma aadaan jidkii carrada ku beegaan maanta waa aragteen si aan tartiib uga socono ilaa sanadkan aan rajaynayno 40% inaan soo gaarno oo aan ka sii soconana maalin aan soo joogay wax tacliin sare la yiraahdo dalka aanay ka jirin iyo dugsi sare aanu ka jirin xataa tacliinta bilaabatay laakiin maalin aan soo joognay ardayga si uu iskuulku u yimaado marka lagu howlgeliyo iskuulka lagu keeno marka iskuulka ka noqonaysa waalidka lagu howlgelinay marka iskuulka ka soo noqonaya ardagaaga 2 kiilo bariis iyo maxaan ku raadahay nus kiilo sokor iyo maxaan ku raadahay liter saliid la soo siina lagu howlgeliyo oo ardada ilmaha ay waalidiinta ay dhahan orod iskuulka aad yaan soo marnay marka alxamdulillah maanta meesha aan joogno waa meel maadlo dawlad goboleed kasta oo dalka Jamhuuriyadda Federaalka ku yaala maanta waxa ka dhisan guri weyn oo 2 dabaqa oo wasaaradda tacliinta iska la leeyahay horta ma soo dhicin hore uma soo dhicin dawlad goboleed kasta oo Jamhuuriyadda Federaalka ka tirsan maanta waxa ka jira macahad tababarka macallimiinta oo macallimiin lagu tababaro sanad kasta 3,000 oo macallin marka la qaadanayo jamhuuriyadda dhamma loo bandhigaa yaa Soomaali ah yaa capacity leh yaa noqon kara macallin qiimeynteeda macallinka lagu qaataa emailay iyo 4.5 noogu qaybi bahda waxbarashada waa ka soo gudubtay dalka dhanaan rabnaa muxuu ahay inuu ka gudbo waxaan rabaa inaan muxuu ahay halkan aan ku hambaliyo xiritaanka tababarka macallimiinta dhamaystay tababarkoodii ama muddooyinka maalmaha soo socda dhamaysan doona
ayadoo meesha u banaynaya 3,000 oo kale oo cusub oo hor leh in maxaan ku iraahdaa la xereeyo oo gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo macallin noqonayo waxaan rabaa inaan midaal u soo qaato macallinkii halkan taagna halkan ka hadlay anoo miyiga joogo oo meel waxoogaa yaroo xoolaha ku ilaashanaya la yiri macallin waa soo noqday macallinka soo noqday waxa qiyaastaa qof walba macallinkaasi haddii aanu fursadaas inuu macallin dib u noqdo aanu heli lahayn xagee ku dambeyn lahaa afarta riyaad sida u daba joogo wiilkiisuna iyo gabadhiisuna inay riyaha daba kacaan maanta magaalo ku soo noqday haddii ilmaha beriga uu baadiye geeyay xataa hadda wuxuu ku qasbay inuu soo celiyo oo magaalo uu keeno oo ugu yaraan meel ay ilmahaas iskuulka aadi karaan uu yimaado marka waa tuulka ugu fiican ee faqriga lagu la dagaalamo aniga iyo qoyskayga aniga agoonana mar walba waa sheegaa hooyo Soomaaliyeed ay soo kurisay ciidan waxba haysanaan ahayn sac yar oo irmaana iyo beer yar noo tiilay aan ku soo kornaan ku noolayn maanta aniga iyo 5 qofood ila dhalatay dhammaan waa jaamiciyiin waana dad guuleystay oo ilmahoodii hadda ay jaamiciyiin iyo si jaamiciyiin iyo dhaqaatiir iyo injineer ah haddii fursadaasi dawlo aanay bixi lahayn yani annaguna maanta muxuu ahaay sida macallinkayga uu sheegay beer yaraan muxuu ahaay sidii oo kale aan magaalada Jalalaqsi kulahaan lahaa magaalada Jalalaqsi magaalo barwaaqo ah oo aad iyo aad u macno badan u qurux badan u fiican waaye maalin dhaweeto nin saaxiibkay ahay oo classmate-kayga ahay oo Yuusuf wuxuu dhurre la yiraahdo ayaan arkaayo iskuulka dhex taagan oo dhahayo iskuulku waa dayactir u baahan yahay madaxweynahana ka warqab iskuulkii marka wasiirka tacliinta faraya in iskuulada ugu horeeyo la dayactiro iskuulkaas oo noqdo kun fasal in la sameeyo oo makaalmooyin kale marka la isku daranayo average-ku wuxuu yahay dawlad goboleed kasta 30 iskuul oo cusub oo aan hadda jirin inay yeelanayso 30 iskuul oo aan hadda jirin inay yeelanayso taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed halkan joogana waxaan farayaa dugsiyada magaalada Muqdisho in laga baxo dadka inay ka baxaan dugsiyada magaalada Muqdisho waa dan guud waa meel jiilashaas oo dhan in ay ka soo baxaan la rabo walaalaha degan ee qoys u soo degay yani danta caamka ah la hagaajin kara baahida qoyska Soomaali ah baahidiisa lama hagaajin karo laakiin waxa qoysaska Soomaalida oo dhan ka dhaxay oo ayaa la hagaajin kara meeshaas qoysas badan oo Soomaali ah ayaa carruur badan oo Soomaali ah ayaa aadi doonta hadii aan la yiraahdo sanad dugsiyeedka cusub 2025-2026 isagana waan hambalyeynaa aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa tirada numberka ardayda dugsiga sare ka qalin jibinaya sanadka dambe inay intii maanta noo sheegay ay aad iyo aad uga badnaadaan ayaan rajaynaynaa hadii aan la yiraahdo numberka dugsiyada iyo goobaha imtixaanka lagu galay sida tartiibka u soo kordhayay hadda halkan laga tusayna waxaan rajaynaynaa iyaduna sanadka dambe inay intaas ka sii bataan mar kale waxaan bogaadinayaa oo hambalyeynayaa wasaaradda tacliinta oo aan leeyahay runtii shaqo aad iyo aad u weyn ayaad qarankan u haysaan wasaarad kastoo tacliineed iyo qof kastoo tacliinta ku mashquulsan meel kasta oo uu joogo sidaas ayaa laga rabaa waxaan leeyahay muxuu ahaayay hambalyo shaqada aad qabateen waa idinku hambalyeynaynaa waana idinku bogaadinaynaa hadii aan la yiraahdo yani public schoolka dalka waxba laga bari jiray mar dhow ka hor aniga sanadkii termkii hore madaxweynaha ayaa iskuulkii ugu horeeyo public ahay yaa la sameeyay dalka jaamacadii ugu horeyso public ahay la sameeyay laakiin ka hor iskuulaadna waa jireen jaamacadna waa jireen yaa loo sameeyay waxa loo sameeyay hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed bisha markay dhamaato $10 oo iskuul fee aan bixi karin waliba dadka Soomaaliyeed ee ladan waxaan ku boorinaynaa oo ku dhiirigelinaynaa in ay intii awoodo iska bixin kartaa iskuulaadka private-ka iyo jaamacadaha private-ka inay aadaan si ay space fursad iyo firaaq u siiyaan kuwa Soomaalida ay aanan awoodin in ay iskuulka private-ka iyo jaamacadda private-ka aadaan aad iyo aad ayay u leedahay ididiilo
maalmo dhaweeto waxaan tagay magaalada Dhuusamareeb booqasho yar ku tagay magaalada Dhuusamareeb dowlad goboleedka Galmudug waxay dhaqan gelisay laboratory lagu baaro alaabta dhismaha carrada shubka maxaan ku yiraahdaa baalkii aggregate-ka maxaa la dhahay jayga all intaan wax lagu dhisan in la baaro la yiraaho saadaan loogu dhisi karaa kan lagu dhisi karaa lagu dhisi karaa waxa aad iyo aad ugu farxad badneed marka gabar Soomaaliyeed oo injineerada ayaa joogtay oo laabka qayb kamid ah qaybihiisa fadhida oo ka shaqeynaysa waa warsaday intee wax soo barataan dhahay waxay dhahday madaxweyne jaamacadda ummadda Soomaaliyeed aan ka soo baxay haye halkan see ku timideen halkan imtixaan ku imiday dhahay waa imtixaan la qaaday oo waliba hay'ada ajnabi ay qaadeen aan ku imiday saasaan ku joogaa laakiin dawladda u shaqeeya marka gabadhaasi iyo in badan oo kale dhaqaatiir oo injineerada oo macallimiin leh oo maxaan ku yiraahdaa xisaabiyayaal oo nooc walba maxaan ku yiraahdaa technology computer ka bartay nooc walba leh oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka qalin jibiyay maanta in ay hormuud yihiin ay socdaan oo ay waxbarashadii iyo dawladdii ay saas uga shaqeynayaan laana waajiba lagu leeyahay gabadhaas injineerada haday shirkad private yaro company u tagto oo ay ama naqshada ay sameeyaan ama guriga ay dhisaan tira waxa laga yaabaa lacag aad iyo aad u badan inay heli lahayd laakiin hadda inay meeshaas ka shaqeyso oo ay xamar ka tagto oo dawlad goboleedkaas ay tagteen halka fariisato ka shaqeyso lacag yarna ay qaadato waxaan dareemayaa inay dareemayso mas'uuliyad lagu hayo oo maxaan ku yiraahdaa lagu leeyahay inay dareemo waxa muwaadinka Soomaaliyeedna waxa uu inuu dareemo la rabo saas waay waxaan kaloo mar kale rabaa ayagana inaan u hambaliyeeyo higher education commission guddiga tacliinta sare ee dhawaan la sameeyay waa aasaaska tacliin quality-geedu fiican yahay inaan helno waa muwaadin shahaado haysto oo meel kasta doortaga imtixaan aan gali karin barbarka qayr beelahan ayaa wax soo baray la yiraa jaamacad aan dad fiican aan soo saari karin ee dadka lacag ka guranayso guri u furan dadka inay lacag ka gurtaan ee aan u furnayn qiyam iyo values kale aan u furnayn in la waayo muwaadin wax bartay oo shahaadada uu wataa iyo waxa uu yaqaanaa isu dhigmaan in la helo waxa soo dhan waa sababta loo aasaasay guddiga tacliinta sare waana waajibka laga rabo inay soo baxdo tacliin sare oo quality leh laakiin tacliinta hoose ee basic ah waa muhiim qofka hadduu tacliin kulli dadka dugsiyada sare ka soo baxa jaamacad ma wada galayaan dadka jaamacadda galayaahay waa inay noqdaan dad wax dheer dadka kale kii jaamacadda gali waayey qof wax dheer kan ka soo baxayana waa inuu noqdaa qof intii jaamacadda soo gashay wax dheer jaamacadda nambarka ugu badan iyo ammaanta ugu badan iyo ardada ka soo qalin jibisaahay ay shaqo hore ka heli og yihiin oo la raadinayo oo ardayga intaan u badhamayn jaamacadda la leeyahay adiga markaad soo qalin jibiso anaad ii shaqaynaysaa waxa guddigaasi inay soo saaraan oo ay aasaas u noqdaan la raba kaas waay laakiin guddiyadii caadigaa la sameyn jiray iska yimid hadday ka mid noqdaan waxay noqonayaan ma rajaynayo dadka loo doortay in badan oo ka mid ahaan aqaanaa dad quality-goodana oo aad u sarreeyo dadnimadooda iyo mas'uuliyaddooda iyo dareenkoodana oo aad u sarreeyo waaye meesha aan ka tallaabo qaadi lahayn oo tacliinta sare ee Soomaaliya ay ka tallaabsan lahayn waaye waxaan rajaynayaa jaamacado badan oo magac oo maanta furan oo aan u weynay sabab aan u xirno aan garan weynay iyo criteria aan ku xirno aan garan weynay guddigaas inuu naga qaabili doono jaamacadda ama standardkaas soo gaarto ama albaabadeeda hal la saaro jaamacad ma noqotaan la wadiira fursad hal la siiyo haday boqolkiiba 40 50 60 soo gaarto muddadaas aad haysataa iska soo dhameystir hal yiraahdo shuruudahaas ku dhiman intaana ku dhiman arday fiican saa u soo saartid waxaana loo baahan yahay soo fuundi guri ma dhisi kara maqaraf hadoona haysanin iyo badiil hadoona haysanin hadii badiil ninka uu haysan guri aan dhisaya uu leeyahay wari adiga guri ma dhisi kartid joog in la yiraawa ama badiil soo gada in la yiraawa la imaa badiil marka guddiga tacliinta sare waxaan ka rabnaa waxaas waay oo aan leenahay waxyaabo badan aan ka rabnaa waxyaabo asaasi waa waxaas jaamacada dalkan ka jiro qaar waa inay xiraan oo ila jaamacad hebel waa lagu kala tagaliira jaamacadaha qaarkood waa in digniin la siiyaa oo la yiraahdo muddadaas haysataa iska soo dhameystir intaas ku muddadii ka bacdina lagu noqdo loo tago soo dhameystirtaa haye soo dhameystir waysa xir albaabadu saa waliba waxaan soo jeedinaa guddigaasi
إن أو deliberations كود هول قلدوا ده public إني نقدان ضد كالصوماليات إني أركان جامعة داني وابو حس الشروطي وجامعة استاندرة تنوان نقوي دي تنصور لما يسترى ليري إن ليرادو أرضي بدن أي نوجوك وشهادة جامعة ذات وطو أنان أقل من إنه جامعي وايلي رامانت وامحي نما أقولي مالك فرتين العقد وكقرطها مستقبل كيس أرض قال أرضي هذا شهادة واسطة شهادة جامعة ذنا استوى كلها ورما هي ستيدا أرض دب النقانة وأكو أركتها ميلاي أرض امتحان كاس قال هدي لي امتحان جامعة ذات وكقولي سنة شهادة جامعة ذات وكل قولي سنة مرة أما جامعة وهاي إديكيش تعلين سيسر أوكي لا مرة وروح أنا بدي تربى شوية نقطة قال لها مركب وحان ربنا جودي جالسنا وأنا وهم برينا حنا وزارتنا وأوهم برينا إن جودي جالس أساس تسميسي كل بدنا السوقي وقت جيس الشرعي أهيد ما أنت معها ولا صار ضعفي ما أنت إن الجوجان محنكور هذا الدكاترة داس محنكور هذا واي أرجع وحلو فرحة واي وحان ربنا أيضا هو شو إن يدردر جريان لقال أنا جرتيه وقال بشارك والنبير هي محنكور هذا كم واي هكا كافطو ما أنا لنا ومدوا هذا وحي وقبنا قناعة هقلنا لنا وزارة تعليمته وزارة مالية دنا رجع الله در الجهاد قبلها الله در الجهاد كاس أذك وعن لا أيقنا سجارة الجارة كفير يعني أدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.